أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني سهل في لفظ ومعاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قفك إلهي إيمان أوسيي عمل صالح أنا أقدري وحا إلهي سبحانه وتعالى أيالي أعداء لا سوى شيطان يكوي شيطان كالراعي أو قالضة هي النفتي سحمان تفريس أعداء سوحي روان إيمان كإلهي إنو أوسيي إنو كاللابط أو أيغو كالأو النقض دقال كودنا وباللو أن ضمات الهين maalintii ilaahay qofkaan iimaan iyo camal saalixa ilaahay ugu deeqay cadow buu yeeshay ibliis baa kow ka ah inta raacday oo gaalada ah naftiisa xumaanta faraysa cadowgaasi laylan wa nahaaran dagaal bay ku hayaan hadduu meel kaga adkaado meel kale ka soo gelayaan kana zuuli mahayaan inay la dirirahayaan ilaa ay diinkiisa ka celiyaan. إلهي وحي قالذا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا كزول ميان قالذو إني وحويان دينكين إذن كعلنا هيان إن كل دير هيان دينكين إن أتكلابتان إلى دينكين إذن كعليان هذي أودي كريان وي وهذي أودي كريان waxay halka daliil u tahay koonkan ilaahay baa ka taliya yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ard ilaahay amarka samadu ka soo maamulaya dhulkuna keenahaya maamulkan koonka ilaahay baa haysta kooxdan gaalada ah oo cadawga ilaahay ah oo ku talaacubahaya waxa u hirgalahaya ayaa iska yar mu'minkan إلهي السماء تاجي لولك جوجلي اسكوديبي آمني رميي أمركي سقعتي جندي أجوين يأود أجوين أو كحساب تما هي إني بدبادسه الدنيا آخرة والله وإلهي سبحانه وتعالى إلهي وحو بلن قاضي أسبابها النصر أو كبحنا هي يجوشة وحاكم إذا الإيمان والعمل الصالح هذا الإيمان قبل التمادد عمل صالح أنا كد ذا شد إلهي عريدك استوى كاساريا أعدادنا إلهي وكا إلى لنيا إلهي وحر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أنك أيها أقرقارينا رسوشنا iyo kuwa rumeeyay oo muuminiinta ah adduunyada iyo aakhiraba annaga u hiilinayna maxaad kale u baahan tahay marka waa kuwa rususha rumeeyo al-iimaan wal amal salih layim ilaahi wuxuu leeyahay wa kaana haqqan alayna nasrul mu'minin dusheena waxa saaran inaan u gargaarno muuminiinta inaan u gargaarno wuxuu ilaahay ballan qaaday dhulka inuu makaninahayo oo ayagu ka talinayaan oo amni uu siinahayo oo diinka ilaahay raaliga uu kaga yahay oo makaninaya inay dabaqaan wa'adallahu alladhina aamanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna عبسي هدي هيسي إلهي وحوق بدل يا أمني يا برواق فخري هدوها يا إلهي وحوق بدل يا برواق
haddii cudur uu hayo ilaahay wuxuu ugu bedelayaa caafimaad waa goormee yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a waa inay aniga i waxidaan oo i waxidahayaan aynan waxna ila wadaajinahay dhulkan waxaa lagu maamuli karaa oo keli ah oo ilaahay u raalli ka yahay التawxiid الإسلام laa ilaaha ila اllah kelimadaas ayaa la rabaa inay adduunyada dhammaanteed ay ka taliso ayadaana ilaahay u khalqay in adduunkan lagu maamulo qofka iimaanka ilaahay uu siiyey marka iimaanka ilaahay uu kuugu daro التawakul calى اllah guusha ilaahay waa kuu soo degdegaysaa ilaahay inaad tala saaratid oo aadan milicsan markaa culays dareentid hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa u gargaara qaxootiyada baahida yaa qaabilsan inay wax ka qabtaan musiibooyinka dabeeciga yaa qaabilsan qolyaha caafimaadku maxay ka yidhaahdeen maxaa la sheegahaya baryahan waxaas aad ku wareegaysidoo dhan asbaabtan allihii khalqay adigu milicso oo tala saaro waa inuu qofku ogaadaa التawakul calى اllah wax ka weynin badan oo ilaahay qofka ugu gargaaraa ma ay jirto waman yatawakkal calى اllahi fahuwa xasbuh ilaahay qofkiis tala saarta ilaahay baa ku filan subxaanaه wa tacaala waxaa la doonayaa masne inuu qofku la yimaado الصidqu wاlإkhlaas si dhab ah oo daacad ah oo ikhlaas ah inuu ugu istaago ilaahay diinkiisa inta uu yaqaano inuu dabaqo oo noloshiisa ku dabaqo gurigiisa naftiisa ka bilaabo gurigiisa ku xejiyo ahalkiisa iyo qaraabadiisa uu gaarsiiyo islaax iyo hagaag bulshadu ay hagaagto iyo cadaalad iyo horumar halkaa ayaa laga helayaa in waxa weeyaan si dhab ah diinka ilaahay dadka loogu dhex baahiyo oo ilaahaygii abuuray lagu xiro ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llah yansurkum wayuthabbit aqdaamakum mu'miniinay haddaad ilaahay u gargaartaan haddaad diinka ilaahay u gargaartaan weeyaane ilaahay waa idin gargaaraya aayadda kale ilaahay wuxuu leeyahay in yansurkum allah falaa ghaaliba lakum haddii ilaahay idin hiiliyo oo ilaahay idin gargaaro cid idinka qaalib noqonaysaa ma jirto haddii micigaaga ilaahay uu yahay oo kan kuu hiilinaya oo ku garab taagan allah uu yahay waxa weeyaan cid kaa raynaysaa ma jirto wain yakhdulkum faman da aladii yansurkum min bacdi haddii ilaahay idin hoojiyo oo garabkiinna ilaahay ka baxo oo muciinka idin maciinahaya idinka daysto oo nasrigiisa idinka ceshado yaa idin gargaari kara qof ilaahay nacay hiilkiisa ilaahay joojiyey ilaahay garabkiisa iyo micigiisa uusan ahayn awood kastoo haysto iyo wax kastoo isbidahayo baylaha weeyaan meel cidlaa taagan weeye wax uu haystaana ma jirto qof ilaahay u gargaarayo oo u hiilinahayo dadkoo dhan hadday dhinac ka noqdaan oo kulligood gees ka istaagaan ilaahay baa u gargaaraya subxaanaه wa tacaala cid ka qaalib noqonaysa male maalintii nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam iyo abubakar dhuumasho ay uga baxeen maka buur god ahna ay galeen halkaasna ay ku dhuumanayeen gaaladana ay meel walba ciidan ku sii daayeen meel walba iyo buur balba ay marahayeen gacantiinuu ka fakan karaa iyo saldanadiinuu ka dhex bixi karaa iyo waa idinka badbaadayaa xisaabtaba kuma aynan daran waxay wadaanba godkuu ku jiray bay soo dul istaageen markaasaa abubakar iyo rasuulka ilaahay oo mid ka mida hoostiisa lugaha hadduu fiiriyo waa ina arkahaya maa danuka biاثnayn allahu ثaaliثuhuma maxaa cumarow ka malaynaysaa abubakarow maxaad ka malaynaysaa buu yidhi qof ilaahay subxaanaه wa tacaala laba ilaahay mid ka saddexeeya uu yahay waxna laka qaadaya male tirsigeennu waa yar yahay dadka noo maciinayo na garab taagan ma hayno aniga iyo adigaan nahay god baan ku jirnaa cid noo soo gurmanayso noo hilinaysa male laakiin saddex ilaah baa noo ah ma laga adkaada masaasagaa ku dambeeyey nimankii saa u gelahayey nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam markuu ciidan aad u fara badan maka ku soo galay oo tale farahooda ay ka baxday kuwa qaxa oo carara
iyo kuwa isdhiiba iyo kuwa islaama ayay u qaybsameen nasriga ilaahay ka raadi meesha uu jiro annaga waxaa waajib nagu ah muslimiinta ah inaynu codkeena siino kitaabka ilaahay in dalkan uu ka hirgalo wax kaste oo la wado oo dasaatiir iyo wax kaste oo la dejiyo oo la qoosho bulshadan ma hagi karaan waayo ku caqiida ma aha bulshadan waxaa hagi kara waxa ay rumaysan yihiin oo ay u soo istaagayaan oo ay ixtiraamayaan oo ay qadarinayaan oo kalaamka ilaahay ah qalbigooda ilaahay iimaan dhigay qalbigooda ilaahay islaamnimo uu dhigay islaamnimada ay haystaan waa kitaab qur'aan oo dhammaystiran iyo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa amal ilaahay raali kaga yahay samada ka soo dejiyay waa amal ilaahay raali uu ka yahay waa amal lagu gaaraya cadaalad waxa la raadinayaa laylan wa nahaaran cadaalad qof kasta oo la eedaynayo waxa lagu eedaynayaa cadaalad darro ayuu sameeyay cadaalad darro ayuu sameeyay haddii cadaalad darro ay timaado waxa weeyaan bulshada burbur iyo halaag iba u dambeeya cadaaladana lagama raadin karo caqliga bani aadamku isku geegeeyay koox kamida intay gooni u baxaan inay yiraahdaan wadan hebel qaanuun iyo dhaqan iyo waxa u noqonaya diin waxa anagu aan dajinay baa lagu maamulaya ma noqonayso waxa noqonaya ilaahaygii khalqay oo masaalixdeena nooga ogaal badan oo adduunyo aakhira waxaan ku hagaagayna ilaahaygii noo abuuray oo noo yaqaana ayaa waxa weeyaan inoo soo dejiyay kitaab inagu filan asaga aynu difaacano asaga aynu u doodno asaga aynu dalbanno qof allaaliyo qofkii kitaabka ilaahay bulsho ku maamulaya hadduu yahay oday kaaba qabiil ah waa in lagu codeeya oo asaga la siiya waa in asaga lagu taageeraa qofkii ka weecanayana hadduu yahay wiilkaaga iyo walaalka uu yahay inaad ka leexataa oo bari ilaahay dartii uga noqoto waayo waxa weeyaan cadaaladdan si kale ku imaan kara niman wadaadaahoo beri qaybinahayay abaar dhacday abaarihii waddanka ka dhacay ka mid ah meel tuulo ah bay raashin ka qaybinayeen qorshaha ay ku qaybinayaan qorsho yaroo degsan oo nidaam oo ayagu ay ugu talagaleen buu ah qorshe ay kula dagaalamayaan dadku inay iskhiyaanaan ama ay wax kala badsadaan buu ah ninkii laba reer le laba raashin baa la siinahayay qofkii saddex le saddex qofkii afar le afar magaalooyinka iyo tuulooyinka gudahooda qoysaska deganna waxba la siin mayn laakiin waxaa la siinahayay kuwa miyiga iyo baadiyaha degan xoogaa raashinahay qaybiyeen oday 70 sano da'diisu meelahaas ay ka weyntaa aan filahay inay ka weynayd oo iska booyahaya markii la qaybiyay ayaa nin wuxuu ku yidhi wadaada maxaad la booyaysa wuxuu yidhi da'daas aan jiro weligay ma aanan arag cadaalad maanta ka horaysa ba aan waxaan la booyayaa nimankaan noo yimid sida ay wax u qaybiyeen iyo cadaaladda aan ku arkay iyo daacadnimada ayaan la ilmeynaya oo la booyay wuxuu yidhi laba reer baan leeyahay reer waa qaday waxba ma helin reerna raashinkii waa helay reerka qaday cadaalad buu ku qaday maxaa yeelay waa reer tuulada degan reerka helayna cadaalad buu ku helay maxaa yeelay waa reer baadiyaha degan haddii nimankaas maanta noo yimid intay bakhaar dhoobaan raashinkaas habeenkii aniga si khaasa gaari iigu rari lahaayeen weligay iyo allahay ma aamineen waxaana aaminsanaan lahaa inay yihiin khaa'imiin ummadda u timid waana qaadan lahaa laakiin waxaan la ilmaynayaa da'da aan jiro intaas la eg oo cadaaladda maanta aan arkay sida aan ugu qancay ayaan la ilmaynayaa oo la ooyaabi dadka wax lama wada deeqsiin karo laakiin waxa la deeqsiin karaa cadaalad cadaalad baa la deeqsiin karaa cadaaladuna waxay ka imaanaysaa wadada ilaahay ku jeexay oo ilaahay u jideeyay in la maro ay ka imaanaysaa intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan baraarujiyo wataan ka hadalnay caafimaadka maalintii dhaweyto iyo qiimaha uu leeyahay cudurkan baahay oo bulshada ku dhex faafay oo dadku tarab u dhimanayaan oo xaafadaha iyo guryaha guri aan dadku qaar jirnaynba ay yar tahay
إلهي سبحانه وتعالى حكمة بكلية وإن فهمت حكمتها إلهي حكمة إلهي كلية وحويان الرجوع والتوبة إلى الله إن إلهي الله لابته وإلهي الله بريه وإلهي الله توبت كانه وآية وحى عن نبي وادم بأنقلني وكان النبي يقول عليه الصلاة والسلام أمت لحية فاحشة يحمانكم فافته إلا عذر أن لا أقون يا كفافة هذين إلهي التوبت كانه قعمها تاجنه ذاتك حمانة الصمينة ينا إسكا قبرنه أو مرض آن بتنه أيقون وابدبادة يعني أنقون وابدبادة عذر كان هاي السنة إلهي عافمات بنوغو بدليا أمن الدرهدة ترتنا إلهي أمني بنوغو بدليا أسبوعي دويتو شمعادي هرآت باللو بقهي عبسيدنا عادي ما هين ودوينكو واحرنايين مساكينتي توكسانيسا مساجدك وسوق قاريويس ما أنت ويكب بدلانتهاي شلي هادو كلا آد باللو بقهي شمعادة آني تيو هرأي كدرانتهاي أيال لآمين سنة قعن بالإسكولات تجيا ولا بابا هيا قحبة إيمانها هيا أمور إله باوطها وحال جيا بالدعاء قف مؤمن وبيتك إلهي صاق لي وحالة عكرا إلهي إن خلقه بندقي ونبري إلهي بريه سيننا أقبلي وإلهي سبحانه وتعالى وجهك لأولحي أي نبضين بريها إلهي أيضا كقول سننا كل بانينا عذر كان وحال السماء ديال كسته الدنيا ولا السماء وحكستو اللي فكر ولا السماء سكست انت الله يلي ولا حكمين واي dad baa gacnihii dabooshay afkii xirtay qofna aan taabanahayn qofna aan la fariisanahayn qofna aan wax la cunahayn go'doon isgeliyay gurigooda ugu tagay in dhakhtarha la weydiyo dhaqaatiirta kamida oo dibadda ka yimid oo cudurkii sanadkii hore koronaha wadamada dibadda isbitaallo waaweyn oo jooga ka shaqeynay wuxuu yiri ma ahan waxaan aan sameynayno wax la fahmi karo inay ka hortag saxayeen ma aha hal didaalo in baa la yiri waa la yaacay qof bas bay la noqotay yaan la istaaban baa la yiri waa yimid yaan la isku dhawaan waa yimid qofkii dareema goodoon ha isgaliyo goodoonkii buu galay kuwa uusan ku dhicin oo gurigooda hoos ka xirtay markii ugu horeysay ayuu gurigooda ugu tagay oo waxa weeyaan u dhintayba oo la qaatay didaalka aad sameynaysa adigu midka koobaad waxa ka dhigtaa الاستغفار والتوبة إلى الله والتضرع إليه إلهينا أتضرع دي ويا قالوا هل دنا عبي كفيرنا هيان أيقو ذات كان أهل إيمان كأهين هل دنا عبي كفيرنا هيان أفكاس الحرتي حقاقا سير يركاه وعربضاء يتلال يمتقانا وحير بكفيرية مؤمن كوا كواسع سيا أفقيس وحاني ومصيبة إلهي صادري مصائبة إلهينا وحا الله ظهر تقع إلهي اللي هو قاسمه الإسكود ديبه إلهي إلا إسكود ديبه أي الله ظهر تقع إلهي إلا طوبت كنا الله ظهر تقع صدقة الله بديا الله ظهر تقع إحسان كالله بتصدق الله ظهر تقع والصدقة دي أبيحين شرتين الله باللابا والحريرين تقرابة الله باللابا والإحسان كي وناق واتكم من المريسان وأنا أقبت بهذا أمراض خطرتها الله باللابا ورجوه دي إن خير كبدية والحق إلهي أتشيسته والإلهي بريس عن برينه هدل لما قال عن بقول كنوا قيس أما طبعا كنوا قيس وقار كم دي هذا بركي صوك عام وأنا الليل كإلهي ودواقان وقعمها تاجان وإلهي بريان هدل لها الجماعة مركز اللي يماذو آذان كي إقامة أنت ود حيسة نبي يقول يريد عدل لما عليه نفط هذا الدعاء أهل كاجا الدعاء مسلمين عموما الدعاء ضل كان يضد كان الدعاء هاوقب بخيل هدين له إن بدن بإلهي إنه أقبلها هيا وإلهي والنور بيرينا هيا هو أن كجود بين عقبتان أنا وأود ما هيصن أدون كوحو هيستنا ما هيصنه ضد كلا كرانتيلو قريها لو حرو العليي بالكودية اللي عقته هذا الله درها هيا دولتي ما مال قلنا هيا ضد كان عن دولة مال قشنا يسال مال قلنا يسال لهين وفخر الله دع هيا وهو حسينها هيا أن لا أرك وعذرك وقدر سمي وأمن الدر أي جرته دينا أبحثن بريها إلهي أين أعررن وحويان
على خطر باكو سوانا نمعة عظيمة أيان هاي السنة مدانا وادرين للي هي إلهي أعرض حق يسوي ففروا إلى الله ففروا إلى الله مالك الله عرض ماله وقنوضنا صلاتها إلهي إذن كيسا ساجد وإن لقى قنوضا وقنوض كل سوء عليا وإلهي لبريا سبحانه وتعالى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه